وحولي سائلكني نين قال ما لا عسوي كرا برمضان وحما كرا يعني الإسلام باي. الحمد لله رب العالمين. horta gaalada waxsiintooda laba ayaa shareecadu u qaybisaa ama culamada muslimiin laba qaybood bay u qaybinayaan gaal marti ku ah iyo gaal kula degan oo meel kula joogoon marti ahayn gaalka martida ah inta xuquuqda martidu ay leedahay ayuu kugu leeyahay oo ah wax waafaqsan shareecadeenna ama haddii uu meel kula joogo ama aanu marti ahayn ama meeshuu magaalo tahay oo meelo hoteelo wax laga cuniyo wax sidaas ay jiraan ma bannaana ixtiraamkiisa iyo maamuustiisa iyo macsuumad idhiya kolkaana waa qofan marti ahayn ma la macsuumi karaa af soomaali ahaan wuxuu u dhigan yahay inaanu marti ahayn marka macsuumitaankiisu waxay ka dhigan tahay inaad kaga raalli tahay kufrigiisa taasina qolada gaalada iyo qolada murtadiinta iyo dadka noocaasa alla subxaanahu watacaala uu fogeeyey adigu ha soo dhoweynin ilaahay waa duleeyey adigu ha cisaynin sidaa darteed hal xuquuqa uu kugu leeyahay waxa weeye xuquuq jaar haddii aad leedihiin iyo haddii uu marti yahay meel kale oo u kaaga leexda iyo meel kale oo wax lagu kariyaan aanay jirin taasuu xuquuq ugu yeelanayaa laakiin inaad macsuumto waxaasi waa waxa islaamka maanta faasaadiyey isdhexgalkaas laa tajidu qowman yu'minuuna billahi yuwaaduuna man xaada allaha warasuulahu wax ciziya iyo wax sharafa iyo wax qiimayna uma samayn kartid keliya waxaad u samayn kartaa qodobka ah wax martigeshiin ah ay dib ugu yeesha ama xuquuq jaara wabilaahi towfiiq wallahu aclam. جزاك الله خير الجزاء شيخ وأنتم أسيهي سؤال صدحات وداعيات داعيات مرة قال أيام دولاري العك أما الرسالة قطع أما قرآن قطع مرة أصيب بصبر الراعية صار راعية عنت على عليا ما دام المركز هو ذلك وليسقى العك المسلمين تا موجود هذي وحنا كحول كرنا. الحمد لله رب العالمين. horta maraakista ama markasyada khayriga horta bal waxa kaa intaan wax ka cunka intaan la gaadhin safar intaan leeg inay galaan horta shareecadu ma ogolshaayo ay intay masaafada intaan leeg iyagoo bilaa maxrama inay socdaan horta ma la ogol yahay kaasaa ka horeeya markaa haddaynu aqwaal marjuuxa aba qaadano oo ah in dee ay soconba karaan ah ama iyaguba maxram isku noqdaan intay bataan ah waxa weeyaan heshiiskooda iyo waxay iyagu ku heshiisiyeen kolley waa dad mujtamaca oo urursan waxay ku soconayaan wixii u ah heshiis haddaanu jirinna curfiga iyo caadaadka sarjaraya oo ah shaqooyinka noocaasa dadka qabtaa waxba loo xadidaa maahe mise waxba looma xadido curfiga iyo caadaadka ayaa u xadidayo hadduu heshiis jirana heshiiskaa lagu soconayaa wabilaahi towfiiq wallahu aclam. lacagaha kuma daro oo waxa weeyaan dadka lacagta ururiya tiradooda kuma jiro laakiin lacagta bedel marka ururiyo dadka tiradooda markay wada dhammaadaan gacanta u dambaysaana qaata lacagtaasi maxalaalba mise waxaa. الحمد لله كل waxay noqonaysaa jawaabta oo koobani waxa weeye kulli dadkani markay hawshan geliyaan heshiis wax la yidhaahdaa jira markaa kaasoo ah inay dee qaybtaa dambe gabadhu ka qaadataa markaa lacagtaasi xalaal bay noqonaysaa maxaa yeelay way wareegaysaa hawl bay gelaysaa hadday doonto inay kuba qaabowdaa laga yaabaa iyada hawshaasi iyo culayskaasi ku dhaca markaa waa ujratulmitligeedii unbay noqonaysaa iyo mushqaayadeedii laakiin kolley in la xadido wixii si aanu shareecada uga gudbin loo xadido unbaa muhiima laakiin si guud waa u bannaan tahay khidmadda qaadashadeedu wallahu aclam wabilaahi towfiiq. جزاك الله خير الجزاء ما صدق الشيخ سائلكن wuxuu leeyahay ma bannaan tahay in lala baxo magacaanta sida nasuudiin iyo afnaan in lala baxo ma bannaan tahay maxay shareecadu qabto. الحمد لله رب العالمين horta awlaadu waxa lay waalidka ku leedahay wax xuquuq la yidhaa inta hay yaryar yihiin xuquuqa ay ku leeyihiin waxaa ka mid ah caruurtu
in tarbiyo fiican la siiyo in inta yaryar yihiin wax la baro in wixii xaaraama loo sheego waxa hadhow laga doonaya in loo sheego xuquuqahooda waxaa ka mida markaa ay waalidka ku leeyihiin magac fiican in loo bixiyo oo ma xadidna magacyada owlaadda loo bixinaya nusuusta sharci waxay noogu sugan in nebigu calayhi salaatu salaam uu tilmaamay in owlaadda magac wanaagsan loo bixiyo magaca wanaagsani markaa ma xadidna keliya waxa reeban uun magac aan shareecadeenna waafaqsanayn oonay shareecadeenna qalad ku ah oonay shareecada macnihiisa kolka la ictibaariyo qalad ka soo baxayo kaa looma bixin karo mid kalena looma bixin karo magac adan macnihiisa fahamsanayn iyo ujeedadiisa in waa lalahaa unaad tidhaahood iskaga bixisaana ma bannaana marka magaca kolka loo bixinayo keliya waxa lagu xadidayaa inuu shareecadeenna waafaqsan yahay inaad macnaha looga jeedo garanayso labadaa qodob oo ah inaanu qodobkaa dambe oo ah macnihiisa aad garanayso oo ah inaanu shareecada ka hor imanayn ama magacu hadduu magac majhuulul macnay noqdo looma bixin karo waana laga bedelayaa anu markaa afnaankaa iyo waxaa garan maaye waxa weeyaan adigu kolley macnihiisa in la ictibaariyo afnaanka de xaggan qur-aanka oo kale macno u leeyahay laakiin macnaha iminka ay uga jeedaan kolley waxa laga yaaba inuu macno istilaaxa yahay sidaa darteed macnaha waxaa la ictibaarinaya inuu macno shareecada waafaqsan noqdo kol haddaan la garanayn macnihiisana waa laga joojinayaa wallahu aclam wabillahi towfiiq jazaaka allahu khayr jazaa aad buu sheekhu u mahadsan yahay saa-iilkani waxa uu leeyahay bangi ayaan lacag ka qaatay bangigaa lacagta markaa la doontay $2,500 ayaan doontay lacagta lagaa doonaya waa $3,000 bigu markaa $500 baa lagu saaraya lacagtiina gacanta igama siinin xooluu igu iibiyey xoolihiina waan hayaa lacagtaasi ma xalaalba mise waa xalaasha shareecada maxay ka qabtaa dee lacag daloona qaadan ayuu isaabaa $500. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin horta nimankii reer banu israa'iilka lo odhan jiray waxaa loo diiday baashan la yidhaahdee baruurta iyo waxyaalo noocaas iyo bariya iyo xaasa loo diiday kadib way farsameeyeenoo way dhalaaliyeenoo dabeed way iibiyeenoo lacagtii bay cuneen qolooyin kale oo iyaga ka mid ahaa waxaa loo diiday inay maalinta sabtida oo kale kalluumaystaan maalintii sabtida kalluunba uu soo dhici waayey maalintii kalluumaysinina la yidhi unbuu daf soo noqday cafwan maalmihii kale wuu soo dhiciba waayey fikir bay sameeyeen ah inay meel qodaan dabadeed maalintana badanayo dee in halkaa ay ku qabtaan oo dee halkaa laga xidho halkaa maalmaha dambe loogu yimaad baalkii oo waa farsama ma ogtahay horta markaa baasha sideeda guudba waa ribo iska farsamaysan xaqiiqatan kolkaa ka hadalno maxaa yeelay waad u tegaysaa hawshii waxa lagu leeyahay lacagtaasaan doonayaa guri baan doonayaa in la dhiso xoolaan doonayaa in la iibiyo hadda imika waa waxaan u malaynayaaba sidaan xoogaa ku yarayla way soo dhadhawaateyo waagii hore waxaa jiraysay in bakhaarka teg la yidhaho guriga adigu nijaarka kaxayso adigu la heshii nijaarkaasaa meeshii baayaca waa nijaar hata ka socda ninkan wax loo iibinayo oo ma kama socda xaggii bankiga dabeed waxaa dhacaysa inuu qiimihii iyo waxa la wada dhammaystirayo halkaa lagu dhammaystirayo ninka bankiga saaxiibulbankigu lacagtuna u qaadayo uu ninkii bakhaarkiinu geynayo alaabtaa ma mulkiin ma arag ma baayicin waxba kumuu samayn berri haddaad iga celi tidhaaho ceebaba ka soo baxaan lagaama celinayo waa iska farsama qafalnajaxan weeye xoolaha oo kale sanimka gabadhu sheegaysaa waa loo iibinayaa lacagtii yaan lama qaadin bannaanka xataa lagu heshiiyey eeg hadda lacagta intaasaa lagu saarayaa baa la yidhi lacagta lagu siinayaana waa intaa waxa dulsaarka weyna waa intaa eeg hadda ciyaartuba bannaankay kusii dhammaatee karo kadib maxaa imanaya xoolo la wado xoolaha ma diidi kartaa oo ma odhan kartaa xoolahaasi imay noqon iga celi waan isla fahmin hoostaa la iskala garan inayna dhacayn taasina iyo baashaasi sida daahirkana waxaad moodaa inay shareecada yar waafaqsan tahay waa hanaanka guud waxaad moodaa inay shareecada waafaqsan tahay xaqiiqadan kolkaan u raad raacdana wax weyn oo baa ku jira baashaa markaa qofkii daruura ku kalifta mooyaane qofkii kale inuu baashaa iskaga leexleexdo ayaa muhima laakiin daahiriyan imika sidaa loo soo dhigayo
shareecada way waafaqsan tahay laakiin ninka xalaal miira doonaya bahashaa wax badan baa ku jira ha ka maarmay hadduu ka maarmi karo hana iska daayo wallahu aclam wabilaahi towfiiq جزاك الله خير. سؤاشا تطبات وحولا يسائل كني مقنان تاين ونكتو قرداس حكم مدينة بحاجة كمتا قرداس ديما كما لغو سون كالا وحولا سوري ودقي لسريع آيات القرآن الفقري مركا إن شاء الله محاكا كمتا شريعة الإسلامكو سمح حين كراعتي لغو قرداس الحمد لله رب العالمين bahasha waxaan malaynay sooba yaraataan moodayna malaha weli way shaqayso in imika aada u yaraato ayaaban moodaynay laakiin jawaabteedu waxay noqonaysaa horta bahasha qofku kole hadduu qof weyn ba yahay uu qaangaadhba gaadho qur-aanka inuu isagu isku akriyo in lagu akriyo intaasaa uga bannaan weliba waxa dheer waxa lagu qoray bal horta waa inaanu shareecada lafteeda ka hor imanayno haddii alaabaha qaar ku qoran ba lagu yihi qoratooyin iyo alaabo kala jeedi iyo waxba ayaa lagu sameeyaa ba la yidhi iyo waxyaalahan shareecadeena dee kufriba ku ah ama shirkiba ku ah kuwaas isagu si guud ku yar iyo kuwii toona uma banaana laakiin haddii qur-aan uu yahay waxa ku qorani qofka yar ee sebiga ah ee si kale lagu maarayn kari waayo haddii dawo looga arko ilmaha yaree naqan baa loo xidhi karaa laakiin oo qeyb salafka ah laga arkay laakiin qof weyn oo isagu isku aqrii karaya maya ma qaadan karo mana dhigan karo bahasha waa saasaa lagu reebaya laakiin ilmo yaroo sabiyo waxaan yaryaro dhabarka lagu siiyo waxaa yareen wax aqrin karaynin waxaa laga yaabaa sidii salafka qaarkii lagu arkay inay iyaga u banaanaato laakiin qof weyn maya uma banaana iskana daa waxa weeyaan allana ku kalsano qur-aankana adigu isku aqri wallahu aclam wabilaahi towfiiq جزاك الله خير الجزاء. سأيشة واحد هذا يبويو أيها بوي سيسة نجح مكاوي كعي كرو يدو ودا مكان نجح أيها بوي سيسة صلاة سي ما أنصح يسا س ما هو يسيتي على مسؤولية سكبر جبل سكبر أنصح يسا. معنى نجح بكوي سيسة معنى ما يكون طيب ممتاز. الحمد لله رب العالمين بمعنى واحد فهمي dhagax bay ku weysaysataa macnaha halkii ciidoo kale inay si qaabkii ciidda u isticmaalayso kolley fatayamamu saciidan tayiban aayadda qur-aanka ilaahi subxaana watacaala uu ku tilmaamayo qolooyinka qaarkood waxay leeyihin bacdulmufasiriin inuu saciidku yahay waxalla waxa arlada gurideeda ah ama dhagax ha noqdo ama gidaar ha noqdo ama wax kale ha noqdo laakiin sida raajixa ah ee nusuusta kale caddaynayso dhagaxu ma noqonayo waa in caro ay ku tayamumtaa oo halkan dhagaxa intay iska qaado unba ama jabcad yaroo ballaadhan bay loogu soo qaadaya caro nadiifa gurigaa loo dhigayaa caradaasi weligeed iskaga tayamumanaysaa waxay ka yar leexinaysaa un carada kolkay wejiga marisa qaybta wejiga ka daadanaysa iyo qaybta gacmaha ka daadanaysa labada unbaa laga leexinayaa jabcadkeed weligii halkaas uu oolayaa habeen iyo dharaarba kaasay iskaga tayamumaysaa waa goorta la xaqiijiyey inayna biyaha isticmaali karayn bay hawshaas samayn doontaa laakiin dhagaxa way joojinaysaa wallahu aclam wabilaahi towfiiq سأيشة واحد ليه هاي قف جاء أو قال ما لديني كنا يسوي الحمد لله مايا حقوق ذا جارش وسطع قيبات قف سطع حقوقات كوله قف لبع حقوقات له يقف على الحق كوله وي قال كل حكم دياي dadka kugu leh halka xaq ee xaqul jaarka ah marka ixtiraamkii iyo wanaajintii jaar lahaa buu leeyahay ma dhibi kartid waad nabadgelinaysaa bale wixii mucaawanaad ee kale ee iska ixsaan ee samafale kale ee sharci kusii talax taganahay laftiis inta xuquuqda jaarka waad u samayn kartaa mana dhibi kartid wallahu aclam wabilaahi towfiiq جزاك الله خير. مركز دلالكي حوله يمدي iyadii baa dilaalanaysa kadibna gacanta inta shalmada hoosta ka geliyaan ayay waxa weeyaan gacanta halkaa lagu kala goostaa neefkii markaa gacantaasi la isku qabsaday maxay shareecada islaamku ka qabtay الحمد لله رب العالمين nin xaaji yacquub la yidhaah baan maalin taariikha qoro wuxuu yidhi
warsayladiiba barakada laga qaado kuwa dumar unbaa gacmaha hoosteega kala jira raggii markaa horta eegmadoodii baa la diiday oo inaad sii eegto ayaa la diiday inaad maanta o dhan gacmeeda tuutuujisood halkan jartahaysood kolba xubin taabata war waa xaaraan muqadici xataa hadday faraha kula soo gasho naga weexidho afka uga sheeg oo waxaasi waa waxyaalaha shareecadeena gefka ku ah ee qofka xataa waa xurmadara horuba berri maxaad diidaya in hore usii socdo dele waabay sawkan meel kasta taabtay waxa weeyaan markaa hawsha ah la joojiyo dumarkana si weyn uga wacdiya arrintaas waa arrin xaaraama weeye xataa inay biica waxaanay kol hadduu mukhaalafo sharci yahay nacdal ilaahay baa raacdo khatar baa raacda moogta kol hadduu sheegu mukhaalafo falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri waxa weeyaan arrintaasi waa arrin khatarteeda le xataa inuu waxaasi bilaa baraka noqdaa laga yaaba sidaa lagu kala iibsadaa marka arrintaas weyna looga hortagaana la joojiya wax banaana maaha wallahu aclam wabilaahi towfiiq waxaan u malaynaya inay joogaan dilaalintii iska ilaaliya insha allah haddii hore samayn jiray saaxiibkeed wuxuu leeyahay aabbahay ayaa xidhiidhin jiray reabtigii kadibna maalkiisana uu siin jiray markaa waxa uu nagu dardaarmay inaan xidhiidhino aniguna waan yaraa markaa iminka baadi goobi doon ma raadiyaa abtiyaaladii mise waan iska daayaa alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin xuquuqaha waalidka u hadhay in lagu xidhiidhiyo ay ka mid tahay bay ka mid tahay inaad saaxiibadii waalid aabbaha iyo waalidkaa saaxiibadiisa inaad xidhiidhiso markaa xataa iyo dad aan la xidhiidhiyeen isaga la-aantiyo dadku way sii turkayaan kolka dambe tolosaalaan abtirsiinta markaa dadkii aan la-aantood isaga la-aantii aan la xidhiidhiyeen laakiin isagu inuu xidhiidhiyo ay ahayd iyo dadkay saaxiibada ahaayeen intaba xuquuqda aabbaa u hadhay u baaqigaa bay ka mid tahay waanad mahadsantahay waad raadin doontaa insha allah wixii aad ku tari karta tali iyo tusaale iyo nasteexabana waa xuquuq aad gudatay oo xuquuqa aabbaa u baaqiya weeye waanaad gudan kartaa wallahu aclam wabilaahi towfiiq sariirkana wuxuu leeyahay dad jaala ayaa isku dhacay dabeetana waa qof markay isku dhacaan waxa weeyaan way isa saamaxaan waanan isa saamaxnay caloosha waxba iskuma hayno islamana hadlayno waddooyinka hadday iskaga soo horbaxnana waan iskaga beedhanaa xukunka noocaasi saamaxaaddii shareecadu tilmaantay ma gaarsiisaya alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin laba qof oo isa saamaxay oo calooshaan waxba isku hayn haddana inay kala weecdaan ficilkaa diidayeen waxa weeyaan waa afkun bay ka heshiiyeen laakiin waxa kalaa jira meesha shareecadeenana nabiguna calayh isalaatu wasalaam wuxuu reebay 3 maalmood wax ka badan qofka walaalka muslimka in laga haajiro oo laga aamusnaado inaynay bannaanayn sidaa darteed saamaxaaddiinaasi saamaxaad maaha bal dib iskugu noqdo oo cala alaqal inaad sheekaysataan shardi maaha laakiin markaad iska hor timaadaan assalaamu calaykum waa inaad tidhaa xataa isagu hadduu ku odhan waayo isaga tiisu adiga kuuma taalle ta adiga kuu taallaa waxa weeye inaad adugu hor bilowdo weliba ka khayrka badan ee labada qof waxa weeye ka bilaabe ee isagu hor bilaabaa ka khayr badan ka lagu bilaabay markaa shirkadiinu shardi maaha laakiin waa inaad markaad iska hor timaadaan assalaamu calaykum istidhaahdaan wixii kaloo dana haddana wax kalaba idinka dhicin waxaad ka sheekaysataan oo kaleba ma jireen oo bal salaamta isla dhaafina saamaxaadana ka xaqiijiyo ficlan u roga baasha afkuuna ku daynine wallahu aclam wabilaahi towfiiq wuxuu leeyahay xaajigaasi 5 neef oo geela ayaan ka bixiyey sako neef yaro awra farjira ayaan ka bixiyey baaqi baan ku leeyahay mise baaqi waa lagu leeyahay horta sekadu sida raajica horta neefka adhigun bay kaa gudaysaa neefkaasi baaqina ma lihid waxna laguguma laha adna waxba kuma lihid tiradii unbu neefkii unbu kaa gudaya laakiin bacdul culamaa waxayba leeyihiin asixiba maayo maxaa yeelay nooc tacabudiyaa ku jira in neefkan adhiga ah 5 laga bixiya tiradan la gooyey iyo neefkan
waa nooc tacabudi oo ilaahay nagu adoonsaday in la khilaafaana maba banaanay leeyihin bacdo culamaa marka awkaaga weyni hadduu kaa noqdana waa rabbilcaalamiin inaanu kaaba noqono waa qarka waxa weeyaan se wax rajaynaynaa maadaama siyaada ay jirto culimo badankeeduna ay sidaa qabta inuu kaa noqonayo laakiin wax qaana ma lihid waxna lagu raaci maayo waxna u raaci maysid bale culimada qaarkeed waba ku diidan tahay laakiin waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay maadaama ay siyaada jirto ilaahay kaa aqbalo wallahu aclam wabilaahi towfiiq way dhantaade way dhantahay soo wad way dhantahay soo maadeer hay waan ducaynaa hay hay su-aasha ugu dambaysa wuxuu leeyahay saa'ilkani neefka ay qalayaan hiliblaydu inta badan waxba ma siiyaan markaasi sidaasi maxay shareecadu ka qabtaa neefkana in wax la sii siiyo ama waxa weeyaan gaajada ayay ku qalaan waxba ma siiyaan ta ugu badan weliba shareecada islaamku maxay ka qabtaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin horta nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoogu tilmaamay shayga in la wanaajiyo la fiicneeyo intaa aan la gowricin oo loo raaxeeyo raaxada waxaa ka mid ah in lasii biyeeyo lasii cuntaysiiyo birtaan la tusin ya bir af badan lagu gowraco laakiin kolley waad qalaysaa sii gaajaysii dembi baa ka ugu sugan mana banaana ficilka noocaasna ficil xaaraanu noqonaya neefkaas wuxuu u baahan yahay ha loo dhammaystiro iyaan la cadaabin gowraca hortii waa in lasii daryeelaa la hagaajiyaa waxaana weeya qofkana dembi waxa ugu filan buu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ka xabiso shaygu loogu dhiibay isaga mas-uuliyaddiisa la saaray cuntooyinkiisa iyo cabitaankiisa waxaa la saaray ama mas-uuliyaddiisa inuu dayaco ayaa dembi ugu filan uu ka xabiso markaa ka xabisna daryeel hagaaji neefkii oo raaxaystay oo aada u qiimo badan dee waajibka tantaa kale aad leedahayna ka guda markaa inaad sii gaajaysiiso hawsha cadaabta noocaasa sii gaadhsiisaana ma banaana wallahu aclam wabilaahi towfiiq